وحساكا aan furay shir weyn oo lagaga arinsanayay ku talagalka shirka Brussels ka dhacaya Belgium oo ay dawladda Soomaaliya hogaamintiisa iyo qorshihiisa leedahay shirkaas oo daba socda hirgelinta waxyaabihii lagaga heshiiyay shirkii Muqdisho qorshaha amniga qaranka December ka dhacay iyo qorshaha horumarinta qaranka guud ahaantiisba iyo shirkii London ee May oo isagana arrimaha Soomaaliya lagaga hadlayay shirka Brussels oo dhici doona 25 ilaa 26 June Brussels ka dhici doona waxa lagaga hadli doona barnaamijyada waaweyn ee dawladda Soomaaliya ilaa hadda intii dawladdu jirtay oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la doortay dalka hogaaminayay guulaha aan ka gaadhnay arrimaha security-ga ama amniga qorshaha amniga qaranka iyo horumarkan ka sameeynay iyo talaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo helo amni sugan oo Soomaaliya ka hana qaada qof waliba ku naaloodo qoys waliba ku naaloodo iyo sidii ciidamada Soomaaliya ay awood buuxda ugu heli lahaayeen haybadii iyo karaamadii iyo sharaftii ay lahaayeen in dib loo dhiso taas oo ku suntan ku talagalka qorshaha amniga qaranka qodobka labaad ee muhiimka waxa weeyaan siyaasadda loo dhan yahay doorashooyinka 2020 2021 iyo in la gaaro doorasho xor ah oo xalaal ah oo ku salaysan hal qof iyo hal cod dadka Soomaaliyeedna konton sano ku dhawaad ay markii ugu horeysay helaan si xor ah in ay u doortaan qofkii matalayay xildhibaankii matalayay qorshaha doorashooyinka qaranka iyo siyaasadda loo dhan yahay oo ay tubta siyaasadda loo dhan yahay golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay ku talagalkiisa iyo hirgelinta qorshahaas ballaaran isaguna qayb weyn ayuu ka yahay dib u eegista dastuurka iyo horumarkan ka sameeynay iyo in waxyaalaha la xiriira sidii loo heli lahaa doorashooyinka xor iyo xalaal oo dastuurka ku qotoma nidaam federaaleyn ah oo la hufay oo heshiis lagu yahay iyo in la helo nidaam cadaaladeed oo baahsan oo tafatiran oo heshiis lagu yahay waxyaabahaas oo dhammi tubta siyaasadda loo dhan yahay qayb ka yihiin waa qodobka labaad ee muhiimka ah ee shirka Brussels lagaga hadli doono saakana halkan aanu kaga hadalnay qodobka saddexaad waxa weeyaan dib u habeynta dhaqaalaha ama ha noqoto ganacsiga deyn cafiska iyo in la helo lacag Soomaaliya ku shaqeyso oo aynu inagu daabacano oo ay qayb ka ah barnaamijka SMB-ga la yiraahdo iyo in dib u habeynta kaabayaasha dhaqaale ay qayb weyn ka tahay hay'adihii iyo bunuugtii iyo hay'adaha maaliyadda ee adduunka IMF World Bank iyo bangiyada caalamiga kale ka mid yihiin xiriirka wanaagsan ee inaga dhaxeeya sidii loo hortabin lahaa horena loogu sii qaadi lahaa iyo ugu dambeyn arrimaha bani'aadminimada abaaraha soo noqnoqda fatahaadaha imanka aynu la halgamayno iyo sidii adkaysi loogu yeelan lahaa taasi waa waxa weeyaan qaybta afraad shirkaas lagaga hadli doono waxa shirkan saaka ka soo qayb galay sida aad arkayseen oo nagu mahad celinaynaa midowga Yurub iyo dawladda Sweden oo labadoodu wada jir shirka u martigeliyay waxa kale oo ka soo qayb galay safaaradaha wadamada aynu saaxiibadan nahay ee reer galbeedka dhamaantood iyo deeq bixiyaasha caalamiga ah badankooda ee waaweyn saaka shirkaasi wuxuu ku dhamaaday guul waxaanu ka heshiinay in waqtiga dambe ka hor shirka Brussels intaan la gaadhin mar dambe la isu yimaado la sii amba qaado waxyaabaha inoo yaalo la tagayo 25 iyo 26 June Brussels la tagayo shir guul ah buu ahaa Soomaaliya horumar bay gaadhay ilaa 2017 intii la doortay madaxweyne Farmaajo ilaa shirkii London iyo Muqdisho waxyaabo badan baa inoo qabsoomay waxaanu jeednaa inaanu sii amba qaadno guulaha aanu gaadhnay halkiina meel dheerna sii gaarsiino Ilaahay idamkiisa